hawl aad u fiican marka laga hadlayo hawlahan wadooyinku ama transportation waa hawlaha laga eego degmada dhaqaalaheedu sidoo kale yahay marka la dhisayo wado golaha deegaanku wax ama wuxuu ka fikiraa wadada uu dhisayo maxaa dhaqaalaha ka soo gali kara wado marka la dhisayo la iska dhisayo laakiin waxa lagu fikirayaa wadada aan dhisayno maxaa dhaqaalaha ka soo gali kara oo lagu xisaabtami karo income ka soo hoyin kara wadada maanta u dhaxaysa dhigta iyo moogtaa suuqa dhexbartanka farsamada imanaysa wanaagna inta bajaaj ka shaqeysa wanaagna dakhliga ay soo hayso wanaagna dawladda cashuurta ay keento xaafadaha ku nool xaafadaha kale ku sunan dina warba ku nool marka wadada kale maanta dawladda oo sadisaysa mashruuca GBL-ga lagu dhisay dhakhtarkana waxaan ka fikirnay inaan marno baabuurta waaweyn waa sida golaha deegaanku moogta ku tashaday wana moogta isla meel dhigay وانا رجينا ودونا كلام بلادنا استحدنا تا ودنا شقال جوهر oo dakhli fiican soo yeesho basasle oo moogtahay shacabkuna ku nool yihiin dawladuna ay income ka soo hesho taasna waa diyaar xagga golaha deegaanka ama xagga dawladda hoose walaac ka muujiyeen taana la dadaalayna waxaan rabnaa inaan moogtahay aan golaha deegaanku soo farageliyo oo moogtahay hadii uu maayirka ku fashilmay aan anagu cadaadis ku saarno maadaama xaafadda shaqal shaar waxa tiri waan haysanaa lacagtiina lagu amro 40% laakiin dawladda hoose ka laana ساسنا نجو موتى كود ذلك هذا على نفتنا. موضوع وحكي بالله بحجرتها ورثه وصاري وسيرة دارنا جدا. وكان بسي بالله لما قالوا في إن لصوصاره. مركا هاوساسي كدولة دجاهان دجمة الدورما. هل كده يدين مرسا محاسة عبد الله من الأيام ده. فما تقول السؤال هذا يجيبه والسؤال بريهم بالسويديني. golaha deegaanka Sweden marka waragto degmooyinka kale ama moogtahay gobolada kalena dardartooda la yaabiso si u socdaan runtii anigu fikirka aan qabo golaha deegaanku ama moogtahay rag garwadeenka nooca golaha maamulka degmadu waxaan aaminsanahay wareegtadii uu soo saaray wasiir waran cadda waxay ahayd mid muuq iyo magacba sharaf u lahayd degmada laakiinse waxaan maanta cadeynayaa inuu ragga garwadeenka ama gudida fulinteedu ay ku fashilmeen bilicdii ama wareegtadii wasiirka waran cadda ka soo saaray maanta waxa laga joogaa 2 bilood waa laga joogaa waxaan leeyahay maamulkii degmadoodu ilaa hadda uu ku fashilmay wareegtadii wasiir waran cadda soo saaray oo waa tii ahayd wareegtadu 300 mitir oo horeysa hab bilowda degmada oo moogta dawladdaas hab bilowda Soomaaliya waxay tiraahdaa boorka hore socodkiisa heegta dawladdu waa sabab waxba ay qabanayday shacabkii gobolka ama degmada deganaana cid maamuleysa ma jirto imga maxay ka qorshaysan markaa ilaa hadda waxaan ku tashanay sidii carabta oo jirtay markii Soomaaliya carabta ku tashatay dibadda ku ay Soomaaliya la soo kala xaleeyay maxaad ku tashatay markaas waxaan ku heshiinay weliga heshiin wareegtadu wasiir waran cadda waxaan ilaa hadda ku heshiinay inuu fulin ilaa goorta uu halal dama laga soo bixito mudane kacab waxa jira in la bilaabay oo wasaaradda maaliyadda oo bilowday ololaha cashuurinta ee gaadiidka horena ay u ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland marka aragtidaada iyo fikrahan maxaad u leeyahay kulay anigu aad baan u soo dhaweynaya hawshaasi tan maanta la bilaabayna waa kii baaqatay in la ururiyo 6 bilood ee dambe marka cid laga ma qaaday wax laga qaaday cid ay ku baaqi noqotaa laga qaadaya lacagtaasi waana tu waajib lagu leeyahay qof kasta inuu bixiyo cashuurta dalka ee lagu leeyahay haday tahay shacabka iyo haday tahay gaadiidleyda inay lacagta bixiyaan waana soo dhaweynaya aad iyo aadna soo dhaweynaya hawshay qabteen hawsha baarlamaanka ansixiyeen ee dalka wax lagu qabanayo taalafteedana iyadana waan soo dhaweynaya waxa kaloo iyadna hambaliyo u diray halkan ka iloobay shirkadda Asarda oo maanta ku guuleysatay inay gabagaba marayso wadadii u dhaxaysay degmada Boorama iyo degmada Dilaa u dhaxaysay inay gabagaba marayso ku guuleysatay maanta hambaliyo u diray waxaan leeyahay hamigiina iyo fikirkiina waxaad u soo leexisaan wadada isku xiraysa Laawiya Caddo ilaa iyo Boorama inaad u soo leexisaan halkaanad ka sii wataan cid kastoo ka qayb qaatay qaran ururinta jidka dhamaystirkeega soo gabagaboonayana iyadana aad baan hambaliyo ugu dirayaa وانا السلام يا دمانتوت مدن الربل واحد كم تاع حلبانه كلها دقانك دقمه بورما اسلام مركز واحد كسو جدا حافظ الشرع الجوهر وهذه يجر ضدك الشعب كدقن حافظها سي اي كو عند اودان اني دقاليه
ay dawladda hoose tidhi bixiya ay diyaar leeyihiin laakiinse ilaa iminka la leeyahay tii dawladda hoose marka arrintaasi maxaa idinka hor jooga ka golo degaan ahaan iyo dawlad hoose ahaan horta waa arrin aad u muhiim ah runaantii xaafadda shaqaale jawhar waan galaayo waan ka soo jeedaa waa run laakiin xildhibaan keligeedu ma yihi waxaan u ahay degmadii buurama la odhan jiro o dhan baan xildhibaan u ahay horta waa arrin aad u yar nasiib darro ah in maxaan ku dhahay 6 bilood aan kawdka reer shaqaale jawhar ay ka furteen dadweynaha reer shaqaale jawhar 40% ay ku jireen lacagtoodu annaga dhaliil xagga iyaga weeyaan inaan ku dayi weyno intayadii weli aan ka wareegayno kulley kana hadhamayne qolada fulinta arrintaasi noo xil saaran inkastoo xogayihii horadda iminka la bedelo xogay cusub joogo xogayo cusub la keenay kulley maayarkii maarixigeenka nooga mas-uulahaa oo arrintaan wax kala socday kulley run ahaantii hawshaasi ma qabsoomin waana nasiib darro golaha deegaanka u taalla caqabadna nagu ah horumarka iyagii inay xagal daacinaysaan oo arki karaa wixii aan ku hamiyeynay horumarkii hore soo galay golaha deegaanka waxaan ku hamiyeyey in aan boorama markaan ka baxo wax badan boorama dibaddeed aan ka qabto iminka laakiin gudihii baa isla dhaafi laanahay bo xabadii ugu horreeyay baa isla dhaafi laanahay laakiin markii hore waxa hamigeyga waa in soo galay golaha deegaanka degmada boorama in aan baahihii oo dhan ka jawaabi doono oon dalka u maamuli doono dakhliga yaree soo galay kooban si qurux badan maadaama nahay 50% jaamacadaha ka soo baxay hamigeyga anigoo weli sii dayin aan ku hamiyey inaan degmada boorama wax ka qabano annagoona weli ka quusanin haddana wallaahi waa wax badan baa isa soo tarayo marba ka dambaysa culays badan uuna saaran yahay maanta dakhligu iska yaryahay laakiin inta yar in la maamulo oo si qurux badan loo maamulo saluugeynaa weli oo saluugaasaa jira maadaama ragga aqoonyahanno garanayno sidii wax loo qorsheynayey sidii wax loo maamulayey iyo waxa yarana soo gala inaan scarcity si maxaa kula tashiilida aan tashiilno oon dhaqaalaha yarana soo galayo prioritisna samayno oon baahida ay ka awood badan tahay aan saaro waddadaasina reer shaqaale jawhar keligood xildhibaan uma nihiin waddanka degmada boorama dhan baan u nahay reer shaqaale jawhar waxaan leenahay iska samray intaan hawshaas aan ka soo dhalaalayna insha allah waan ku daba jirnaana